Ma rabtaa adigoo ramadaantaada soomaayo ee waajibka Allah subxaanahu wa tacaala ku saaray gudanayo haddana in miisaankaaga aad dhinto amaba miisaanka aa markaasi tahay meeshiisa uusan ka dhaqaaqin. haddaba jawaabtaada haddii ay haa tahay oo ciidana aa rabtid lifestyle qurux badan in aa ku ciidid, hadduu ilaahay cimri iyo caafimaad nagu gaarsiiyo, muuqaalkan daawo bilow ilaa iyo dhammaad. wax walba oo aan ka hadlo sida ay tahay haddii aa u qaadato guulkaaga ama guushaada waa gaaraysaa. laakiinse haddii aa ka boodo hadalladan iyo cuntooyinkan aan hadda kuu sheegayo, adiga ayaa hul isku riday. haddaba sidee ku ogaan kartaa sirta markaas aa miisaankaaga ku ridi karto adiga oo sooman? muuqaalka ku daawo bilow ilaa iyo dhammaad, wixii fikirkaagana hoos. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaa qaaligaay ku xiran janalkayga Muneysa, meel walba adduunka joogtaan inaa igu caafimaad qabtaana rajeynaa. fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa janalkeena Muneysa aa soo booqanayso, waxaa kaa codsanaa inaad subscribe aa noo saarto, gambaleelkana aa furto, muuqaalkana like aa saarto, asxaabtaadana aa la sheer gareyso. wixii ra'yigaaga ah ama talo ama maxay ahayd towaana ama wax ku daris ahna qaybta commentiga aa noogu reeb insha Allah. aad iyo aad aa u mahadsantihiin walaalaa cusub ee janalkeena maskiinka aa kusoo biiray, aad iyo aad aa u mahadsantihiin idin leehay iyo walaalihii hore la joogi jiray dhammaantiina. walaalahayga qaaliga ah, ramadaantii maalmo kooban ayaa nooga hartay. ilaah subxaana wa tacaala cimri iyo caafimaad ha nagu gaarsiiyo. waxaa jira dad aad iyo aad u badan ee janalkaygan ku xiran ee miisaanka iska dhimi jiray eena iska dhimay. dhowr su-aaladoodaa laysoo weydiiyey. Muneysa waxaa la dhahay ramadaan ayaa yimid, dadkii waxaa laga yaabaa abateedkii inay furtaan, waqti inay isku waayaan ee wax ku samaystaan. haddaba sidee xal lagu heli karaa? xalka waxa lagu heli karaa waxay tahay dhammaan inaa qaadatid qodobadan aan hadda intii ka sheegayo iyo dhammaan jadwalkaana idin siinayo. haddii aa qaadatiin sida aa rabtiina u noolaan kartiin. nolosha mar walba adiga ayaa gacanta ku haya, ma ogiye ayada gacanta kuguma hayso. haddii adiga markaas aa ayada u deysid sidee rabto ayay kaa yeelanaysaa. laakiinse haddii aa xakamaysid sida adiga aa rabto ayaa mar walba ka yeelanaysaa. haddaba walaalahayga qaaliga ah, example hadda waxaa idinkala hadlaya cuntooyinka markaas aa ka dheeraanaysiin ramadaanta iyo cuntooyinka markaas aa cunaysiin. sideena badan Soomaali haddii aan nahay, ramadaan haddii la gaaro ilaahay amarkiisa caada u qabnaa in aan cunno burka, sambuuska, bajiyaha, maxay ahayd malwaxda, wax walba oo macmacaana iyo wax walba oo markaas faadkaaga kor geyn karo. wax caafimaad leh aa ku bedelan kartaa intaas oo dhan adigoo weliba sida aad jeceshahay u cunaayo. waxaa kasoo bilaabaynaa marka ugu horeysa afurkaaga. markii aa afurayso waa inaa cuntaa afur caafimaad leh. marka ugu horeysa horta cuntadaada waa inay ka koobnaataa dhowr shay, ma ahan hal shay inaa mar walba aa bareesharka aa saartid ama muxuu ahaaye aa foosgaraysid, ma fiicno. saxanka cuntada aa cunayso waa inuu horta ka koobnaadaa qudaar, waa inuu ka koobnaadaa qudaarta midda dabka la saaraayo, qudaar midda maxay ahayto macaan, muuska, tufaaxa, liinta, wax walbo frawla, yani wax walba kiwi, wax walba oo khudaar ah. waa lambar 2 soomaa waa inuu ka koobnaadaa borotiin, inuu ka koobnaadaa borotiinkaas yani hilibka, fiishka, jikinka, shafka waa in aa ka helaysid waa asagane. cuntada kale ee markaas adiga lagaaga baahan yahay inaa cunto ahaan u qaadatane waa inay ahaataa cunto caafimaad leh. cuntooyinkaas haddii yani for example aa u baahan tahay baasta u baahan tahay, bur caafimaad lahaa jiro. burka caafimaadka ah waxaa laga sameeyaa sawiradeeda, kulli sawiradeeda kusoo qaadanaya insha Allah wixii markaas aan awoodo. burka caafimaad kale burka aa isticmaalaysid waa inuu ahaadaa galeyda burkeeda la shiiday, galeydeeni Soomaaliya, misirta, jaalaleeda, muxuu ahaay midaan oo la dhahayo shumburaha, xumuska carabta ee dhahaan ama chickpeas af English saas waaye, qamadiga aa isticmaalaysaa. haddii aad canjeero ayadaa ka samaysanay, haddii aad rabtid markaas malawax ayadaa ka samaysanaysa adoo saliid olive korka uga darsanaayo, malab yarna ku darsanaayo.
taas waa mid malawixiyaa ka samaysta haddii aragta canjeero aydaa ka haddaa baastada xitaa aydaa ka samaysanaysaa maxaa yeelay soorta way kuu gashaa waa ka samaysan kartaa taas waa isla fahnaa amalena haddii aragtid waxyaabaha burka ee markaas aa isticmaalaysid okay afurkiyaa la gaaray afurka cabitaankaaga waa inuu ahaada cabitaan adiga gacantaada aa ku shiganaysid ma ahan cabitaan sajal ah ama baakad ku jiro ama gascad ku jiro ee la qasaayo ma ahan waa inaad soo qaadataa xabad liin ah xabad tufaaxa qarrac waa isku shiidanaysaa cabitaan adiga aa hubta waay wax sokorna umaba dhaweynaysid oo ma rabtid asagaa wuxuu leeyahay sokor caafimaad leh oo healthy ayuu leeyahay sokor uma dhaweynaysid waa mid ugu horeysa habeenkii markii af bilaabanaysid waxaa ku xigsanaysaa shurbadaas oo markaas aa ka samaysanaysa haddii adiga markaas aa jeceshahay cadaska waxaana ku dartaa mar walba haddii aa rabtid in aadan baahi dareemin oo jirkaagana awood uu yeeshto hadda ka hor waa soo sharxay celery ama waxay ahayto crafts carabiga saas inuu ahaa amalana crafts ha ama celeriga aa shurbada ka samaysanaysa asagaa ku darsanaysaa haddii aa u baahantiin insha allah waa idin soo gelinaa chickenka shafka soo qaadanaysa ama chickenka kale inta maraqiisa ka soo bixisid aa ku karsanaysaa boorasha ku karsanay haddii aa rabtidna digirta ku karsanaysaa markii la aadaamo oo qaxwadaadii iyo labadaada xabad timirta afka gashatid biyahaagii aa adiga hubtid ee cabitaanka ay gacantaada ku qasatay aa cabtid shurbadaada cabaysaa waa cabtay waxaa kuu soo haray afurkii markaas aa cuni lahayd afurka waa kana digirdaada soo qabsanaysaa misigaa taalaa Soomaaliya wadankeeni waliba maasha Allah aad iyo aad u fiican yahay misigadaada soo qaadanay chickenkaaga shafka kalluunkaaga ama maxay ahayto hilibka lo'da ah wixii markaas aa haysatid ee aa borotiin aa ka helaysid kaas waa karsatay cuntadana waa idin sheegay ama qamadiga ama maxay ahayto misirta ama digiraha waxyaabahaas aa biyo ku karinaysaa markii aa ku karisid kadib suugo yar u samaysanaysaa yaanyo yar intaa u samaystid qudaarta gooniya u karsanaysaa waxaana dabka inaad ku badisid looma baahno chickenkaaga adigoonan cusbo badan u darin chickenka cusbo uma baahno iyo fiishka fariisuul haddaa saas ugu dartid saliid yar oo oliva shagac ku siisatid dhinaca ka saaranaysaa haye waxaa kuu saaran yacni tusaale ahaan qamadiyaa samaysatay yacni waxaa kasoo gurinaysaa qiyaas markaas adiga calooshaaga ku aado oo aana dhibaato kugu keenaynin ramadaanta ayadaan wax badan la cuni karin mar haddii la afuro waxaa kusoo darsanaysaa chickenkaaga waxaa ku darsanaysaa qudaarta aa karsatay waxaa ku darsanaysaa salad aa samaysanaysaa saladka asagana geesaa ka saaranaysaa waxaa kalentoo samaysanaysaa qudaartaadii aa jarjaranaysaa fruitiska aa haysid aa jarjaranaysaa intaas haddii aa ku afurtid wax kale uma baahnayd midda kale aa idinkala yacni dardaarmaya waxay tahay in aadan u dhawaanin habeenkii suxuurta wax dufun leh wax la shiilshiilay wax markaas faadkiis aad u badan yahay suxuurta haddii aa rabtid in uusan miisaan kugu darsamin maadaama xilli dambe aa wax cunaysid badankoodna yani dadka laga yaabo xilligaas marka ay wax cunaan ay seexanayaan calooshaada ayadoo wax culus ku jiro ha seexanin way fahantiin amalena ha seexanin waxaa cunaysaa boorashka waa kanaa sida ujeedin boorashka ama asagoo qalalana jiro oo fruits qalalan lagu daro saas lagu cunaa ama dabka soo marsa sida adiga markaas aa jecesha ama dubo sida adiga aa rabto kaasaa samaysanaysaa maxay ahayto bahalada maxaa la loosaska qalalan looska Kenya ma aha looska weynka almondiga looska kale muxuu ahaa balbalaaran dhammaan loosaskaas oo dhan borotiin ka helaysa aa ku darsanaysaa yogurt yar ku darsanaysaa ama caana ku darsanaysaa oo caanahan oo yahay almond ama maxay ahayto caanaha faadkiisa uu yar yahay ama caanaha faadkiisa halka uu yahay waa isticmaali kartaa ma fahanteen kaasaa ku darsanaysaa ama caanaha qumbaha saliidaha aa isticmaalaysa waa inay ahaadaan saliida qumbaha waa inay ahaataa saliid oliva saliidaha caafimaadka oo heltiga ah kuwaas waa in aa wax ku samaysato intaas markii aa cuntay kadib maxaa u baahan tahay mal waxaa samaysan kartaa kadib koob uu ka kooban yahay sinjibiil iyo qarfe iyo liin dhanaan iyo waxyaabahaas ay ka kooban yihiin oo markaas calooshaadii wixii aa cuntay ka shaqaysiinayo gubaayo calooshaadii cuntadii aa cuntay mar walbana bisha ramadaan isku day in aa cabtid habeen walba markii aa afuraysid hal koob oo cabitaanka loo yaqaano
celery juice kaas waa ina cabtaa hadda kahor channelkayga waa soo geliyay anigu ii alfrinjerka igu jira ii diyaarsan yahay idin dhahay soosan iiga halaabin waa soo baxsanaa hasheeda caleen waxaa raba aa ku shiidana ama kaligeeda shiidana qab aa isku siinaa dhammaan fitamiin walba oo jirkaaga u baahan yahay full oo ka dhiga calooshaadana maasha Allah kaale iska arag uuna kaaga dhiga miisaankana wuu kaa dhima skiinkaagana wuu ku soo qurux badnaanaya marka walaalahayga qaaliga ah waa ina aad iska dheereysaa waxyaabaha saliid lagu shiil burka cad sokorta haddii aadan ka maarmeynin sokorta waxaa isticmaalaysaa brown sugarka aa isticmaalaysaa markii aad rabtid haddii aa ku darsanaysid qaxwo kaleento bini'aadana qaxwo haddii aa ku darsanaysid oo kale taasaa ku darsanaysaa haddii markaas boorash ama malab waxa aa samaystayna malab yaraa korka uga daadsanaysaa waa isku dhammaatay cabitaankana sokor uma baahno yacni intaas haddii aad samaysid waa hubaa 100% in miisaankaaga uu dhacayo si tartiib ah oo u dhacayo ma fahanteen laakiinse intaan haddii aad ka boodid oo wadadii hore aad martiin ay ahayd burkeeni bariiskeeni sambuuskeeni adduunka isku laalaabanayni hubaal in miisaankaaga uu kor u kacayo laakiinse adiga waa inaad digtoono aa ka gashaa amaba difaaca ka gashaa jirkaaga maalinkii oo dhan wax ma cunin waa isku cabarsanaa habeenkii markii aad kala furtid aa cunto qaldan aa ku daldashid isla marka hore ka qaadana asagana marka walaalay qaaliga haddii aa u baahantiin inaa cuntooyinka aa weliba idin soo kala sharxo qaybta commentiga igu reeba idinkay hay iska soo dhiga insha Allah wixii su'aal aa qabtiin hoos igu reeba muuqaalka like saara si asxaab badan ay uga faa'iideystaan haddii fikir aa qabtiin hoos igu reeba insha Allah inta muuqaalka mid la mid ah ku kulmi doonana waxa idin leeyahay walaalay qaaliga ila caafimaad iyo cimriga nagu gaarsiiyo waan idin macsalaameyna insha Allah maanta macsalaama idin leeyahay man ka baxaymo marka insha Allah ramadaan mubaarak meel walba adduunka aad ka joogtiin ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo maalmo iyo wad ayaan